maalin kasta waanu dul qaadanaa waanu xushoonnaa qarankaanu jecelnay dalkaygaanu jecelnay maalin kasta fanaan baa halkaa lagu buquujinaya lagu xidhaya soomaad garan waa la xidhaya suugaantayada iyo fankaanu hargeysa u samayna ka soo dhex saaro wasiirre xamara baa nagu hambaliyeeya wasiirradayduna mooga dhiirigelin kuma haysanno dhaqaale kuma haysanno uguma dudayno kaasi waxa uu ahaa abwaan ku sugan magaalada Hargeysa oo xariga Qamar Suugaani loo geystay aad uga carooday haddaba daawadayaal Qamar Suugaani miyaa la soo daayay mise weli xabsiga ayuu ku sugan yahay haddaba amuurahaasi ayaa rabnaa inaan maantay wixii ka cusubni la wadaagna haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay fadlan asxaabtaada kale la sii wadaag oo leeg inoo saar subscribe saar gambaleelkana furo oo asxaabtaada la sii wadaag mahadsanid haddaba daawadayaal sida aan wada ognahay fanaanka weyn ee Qamar Suugaani ayaa waayahani waxa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho kadib 25 bishan markii uu ka soo tagay magaalada Muqdisho kadibna uu soo bahoolay magaaladiisa Hargeysa haddaba fanaankani ayaa waxa la sheegay in lagu xiray magaalada Berbera haddaba daawadayaal xarigiisa ayaa dad badan aad uga caroodeen dad badan oo caan ahna xariga Qamar Suugaani loo geystay aad uga hadleen haddaba waxa kamid ahaa dadka ka hadlay abwaankani oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa aad uga carooday hadaladiisana waxa kamid ahaa walaal waxaan u aragnaa xariga Qamar Suugaani xarig xaaraan ah fanaan yar siyaasad ku jirin wax dalkayga iyo qarankayga wax yeelaya ku jirin xamar tagay show soo qabsanayay soo noqday in la xidho waxaan u arkaa wax dalkana ku ah liidnimo dadka ku ah bahdil waayo Soomaaliyaanimada cuqdad in la qaadsiyo maaha aniga xamar waxay noola mid tahay Nairobi South Africa Dubai dalka aniga ay tahay inay yaro show ku soo qabsado yimi in la xidho khalad baan u aragnaa walaal anagu siyaasiyiin baanu shalay u doodaynay xilal waaweyn ra'iisul wasaare ka gaaray oo caawa Hargeysa jooga oo la soo daayo magaalada soo galay Qamar Suugaani doo xamar joogay oo uu yimi dalkiisii maxaa buuqan inay sameeyaan inay xarig keenin inay fanka oo dhan kiciyaan waa maxay wa khalad baan u aragnaa anagu walaal xarigiisa waana ka soo horjeednaa mana ogolin marar badan ayaa fanaaniin xamar ka laabtay lagu xiray Somaliland marka adinka waxaad bartilmaameedka u tihiin ma ogaateen si aad u ogaataan waxa la idinku haysto annagu ma garanayno laakiin imika laga bilaabo waanu tashanaynaa waanu soo jeesanaynaa waayo fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo cidda dhaqankan uu quseeyaa way iska hurudaa dad war haya maaha waa la kicinayaa qabyaalad ma gallo arrimo kale kama shaqayno heesaha yagaasaanu iska tumanaa qarankayaga waanu jecel waanu haysanaa annagoon mushahar iyo dheefminta ku qabin baanu maalin kasta wadani soo saaraa dalkayaga wadana waanu jecel lahay dalkayaga wixii loo soo maray waanu ognahay siyaasiyiinta maanta joogta annagaa ka jecel dalkayaga haddana cunaqabatayn تعدي حرق شرف كما هيستنو شعب كيغو نجعلينا waa dawladayada anaga idinku waxaad tihiin dad saameyn leh oo caan ah marka soo idin ma muuqata in maqaamkaasi uu wax u dhimi karo qadiyada Somaliland ee goon u goosadka ah walaalo dadku waa kala aragti anigu waxaan ay halabuur Somaliland ah jecel u dhashay waaniga kule anigu Soomaaliya waxaan u arkaa dalaan jaarnahay nat Soomaaliya inaan wadanahay sidaa daraadeed fanaanku markuu xamar tago haddii uu madaxweynaha farmaajo heeso u soo qaado oo dalkayga soo caayo oo calamada Soomaaliya isku maro waxaan u arkaa anigu inuu qaranka wax yeelay anaa ka soo horjeeda anaa maaga anaa xarigiisa ku tiqtiqsada laakiin marka sida Qamar Suugaani uu show ku soo qabsanayay igama duwana aniga nin Nairobi tago show ku soo qabsaday igama duwana khalad buu Qamar Suugaani ku xidhay walaa waa kala qadiyad kooxo fanka ah ayaa tihiin marka mas'uuliyiinta Somaliland ma kala hadasheen xarigan joogtada imikaanu ka wada hadlaynaa imikaanu shirargalaynaa haddaanu halabuurka nahay haddaanu kooxaha nahay inaanu wax iska celino haddiina laga xishoon waayey haade oo afkayaga maallo baanu gelaynaa imika sababtu tahay dadkayagu dawladayadu sida fanka loo maalo ma taqaano ee sida fanka loo xilaabay taqaan waxa weeye dal baan joogaa Hargeysaan joogaa jamhuuriyadda Somaliland koox baan gudoomiye ka ahay haddaan maanta islaahay show qabso 12 habeenimo uu iga xidhan yahay Soomaad garan dhaqaale dawladda kama qaato mushahar kama qaato Qamar Suugaani waa la mid showga maanta uu xamar ku soo qabsaday Hargeysa kama qabsan karo 12 askari baa dul taagan walaal marka dawladaydu fanka sida loo maalo oo loogu shaqaysto ma taqaanay sida loo xilaabay taqaana iyadaana taqaan fankuna waa dhaqankii waa dawladnimadii waa dalkii waxa maanta madaxweynuhu ka hadlayo waxa fariin dadka u gaarsiin lahaa waa fan iyo suugaan Soomaad garan haddii fanaankeeda ay dar yeelan lahayd dawladdu way maali lahayd oo halabuurkeeda wax weydiin cid wax lama weydiiso cid wax lagu fasho annaga jecel dalkayaga oo u dhimana oo jecelaanaynana
ugana tegayn laakiin waanu tusaynaa dhaliishoodaanu tusaynaa heesaanu ku tusaynaa maansooyin baanu ku tusaynaa gabayaanu ku tusaynaa soomaad garan meel allaale meeshii noo bannaana waanu ka soo heesanaa annagoo dalkayaga iyo jamhuuriyaddeeda jecel somalilan marka muxuu xalku idinku muuqdaa dib baanu ka soo sheegaynaayo waxa laga yeelo Qamar Suugaani iyo ay kaga soo jawaabaan baanu ku tallaabo qaadanayna maalin kasta waanu dul qaadanaa waanu xushoonnaa qarankaanu jecelnahay dalkaygaanu jecelnahay maalin kasta fanaan baa halkaa lagu buquujinaya lagu xidhaya soomaad garan waa la xidhaya suugaantayada iyo fankaanu hargeysa u samaynaa ka soo dhex saaro wasiirre xamara baa nagu hambaliyeeya wasiirradeyduna mooga dhiirigelin kuma haysanno dhaqaale kuma haysanno uguma dudayno haddana xadhig haddii naloogu daro waxaanu qaadan karayna maaha walaal waxaanu qaadan karayna maaha halka maanta dalka dhaliisha qura haystaa dalka uu ka socon lahaayna waa fankeeda ay hortaagantay maalin kasta ra'yi iyo fikir meel qaldan laga dayayaanu meel saxan ka eegi lahayn mase yeeli doonante haddaanu godad ku gelayno dalkaygana kama tegayno waanu jecelahay waanu siiska celinayna ma ahan wax nagu cusub fanaan muqdisho ka soo heysay kuna soo laabta hargeyso in nabad lagu sii daayo haddaba waxa ay ahayd markii fanaanka nimcaan hilaac uu ka soo heysay magaalada muqdisho ama uu aaday kadibna uu ku soo laabtay magaalada hargeysa in xarig loo geystay haddaba waxaa jiro fanaaniin fara badan oo hargeysa ka tegay muqdishona gaaray kadibna markii ay hargeysa ku soo laabteen la xiray haddaba daawadayaal tani wax nagu cusub miyay tahay mase weligeed ayay hore u dhici jirtay haddaba daawadayaal fikirkiinu waa inoo muhiim ee qaybta hoose ee commentiga noogu soo reeba haddaba fanaankani wixii ka soo kordha arrimihiisa waan inala soo wadaagi doonaa ee haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay fadlan like inoo saar oo asxaabta danaynayso muuqaalada noocan oo kale u sii sheergaree mahad sanid